dalka Koonfur Afrika waxaa lagu soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Galmudug haddana ah agaasimaha batroolka iyo macdanta ee Soomaaliya mudane Maxamed Xaashi Cabdi Carabey. Agaasimaha ayaa dalka Koonfur Afrika u yimid safar shaqo. Jaaliyadda Soomaalida qaybaheeda kala duwan ayaa si qurux badan u soo dhaweeyay. Qaar ka mid ah oo madaasha ka hadlayna hadaladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan. intaas ka bacdi waxaan u malaynayaa waa goor dambe waxaan soo dhaweynaynaa Maxamed Xaashi Cabdi ama Carabey Xaashi Ganay ninba sidoo yaqaan madaxweynihii hore madaxweyne ku-xigeenkii hore Galmudug iyo agaasimaha wasaaradda hadda la sheegay ee batroolka iyo kheyraadka Soomaaliya waxaan leenahay walaal soo dhawow agaasima marka koobaad waxaa kale oo u mahad celinayaa jaaliyaddan Soomaaliyeed South Africa dadkan akhyaarta quruxda badan ee halkan isugu yimid iyo intii si gaar ah u abaabushay oo ugu horeeyay gudoomiye Talyaani oo garabkayga midig fadhiya iyo gudoomiye Cabdiraxmaan oo gacanta bidix iga taagan waan u mahad celinayaa waxaan filayaa xilligu waa xilli dambe dadkuna dabcan waa iska dad shaqo wadanku waad garanaysaan dhamaantiin waan soo koobayaa maadaama codsaday gudoomiye Cabdiraxmaan in la soo koobo hadalada mar labaad walaal Maxamed Xaashi soo dhawow waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xilkaad ummadda u hayso ha kugu asturo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa dalkeena Soomaaliyeed iyo dawladdeena inuu Ilaahay ka dhigo mid taabaqaado oo awood leh oo caalamka dawladaha sida u shaqeeyaan oo kale u shaqeysa marka hore waxaan aad ugu mahad celinayaa gudoomiye Talyaani iyo tiimkiisa iyo gabdhaha quruxda badan oo meesha imaaday oo saacadan soo jeeda waqtigan walaalkooda u imaadeen madaxweyne ku-xigeenkii hore aad iyo aad ugu mahad celinayaa gabdhaha iyo dadka soo qaybgalayaasha iyo qabanqaabayaashaba مسؤول waxaan ku leenahay soo dhawow intii badneed yiraahday waxaan isleeyahay jaaliyadu waxay ka sugaysaa xogtii wadanka maadaama aad mas'uul xil haya aad tahay dadku aaday waxay ugu baahi qabaan inay xog fiican ka helaan wadankii haday tahay midda federaalka iyo haday tahay midda Galmudugba waxaan isleeyahay xog fiican aad ka haysaa jaaliyadu waxay si guud kaaga rabtaa inaad warbixin aad ka siisid waxaan leenahay soo dhawaado meeshan ma ahan meel hal qof lagu soo dhaweeyay madaxda badan waan soo dhaweynaa inta badan waliba madaxda halkan timaade la soo dhaweeyaa way ka faa'iiday xilal waaweyn iyo waxbay heshaa marka waxaan u maleynayaa dadkan waa sibay u barakaysan yihiin nin nasiib laha soo booqdo marka waxaan leenahay mudane Carabey soo dhawow aad iyo aad baan ugu faraxsanahay booqashada madaxdu mar walba ay halkan imaanayso annaguna inaan soo dhaweyno waa ku mahadsannahay laakiin hal arrin oo madaxda Soomaalidu taqaan fariintaas inaad gaarsiido aad u fiicnaan lahayd waxay tahay arrintaas madaxda waa la soo dhaweeyaa laakiin ay dadka soo ma dhaweyso marka intaasna message-kaasna dadka aad arki doonto gaarsiiyo sababtoo ay tahay madaxdu kaligeed madax maaha soo dhaweeyay runtii maartay madaxweynihii hore ee Galmudug ana maartay agaasimaha maartay batroolka iyo macdanta Soomaaliyeed Maxamed Xaashi Cabdi soo dhawow agaasime waan ku faraxsanahay maartay inaan aad aragto dadka iyo jaaliyadda u timaada Soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanahay inaan wajiga aragno noo soo dhaweeyay xalay ilaa haddana waa u taagnaa ilaa maanta si gaarna way u qosaysaa waa madaxweynihii ilaa hadeer taasna mid Soomaaliyeed dadka aan la simanahay oo ku maasan yahay soo dhawow mudane agaasime aad iyo aad ku soo dhaweynaynaa may balana insha Allah hadhowaada asin dhawaayaan mar walba markood mar labaad waan siin sagootiyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hore Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi agaasimaha wasaaradda batroolka iyo macdanta waxaan leeyahay ku soo dhawow jaaliyadaadii ku soo dhawow ummadda Soomaaliyeed ee Johannesburg ama qoyteynba madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Galmudug ahna agaasimaha wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliyeed mudane wax kale oo dhihi karna male kulay soo dhaweyn
mid qalbigeeda iyo baaxadeeda ay weyn tahay sharafteeda iyo karaamadeedana aad xaq u leedahay ku soo dhawow. waxaa sidoo kale soo dhaweeyay gudoomiye Maxamed Cumar Talyaani hadaladiisana waxaa ka mid ahaa ku soo dhawow South Africa ayaan ku leeyahay madaxweyne jaaliyadaadii waa jaaliyadii reer Galmudug waa jaaliyadu guud ee Soomaaliyeed dalka Koonfur Afrika waxa meesha fadhiya waxay la tahay Puntland waa ay muuqataay maamul goboleedyada cid daris kulahayd waa reer Puntland Hirshabeelle waa ay fadhisaa Koonfur Galbeed cid maqan ma jirto khaatumo xitaa dadka dhaxraadina waa heleynaa waxaan ku leenahay reer Jubbaland oo gudoomiyaha xiriirinayo reer Jubbaland maadaama waxaan u xusaynaa taas waxay tahay maadaama maamul goboleed madaxweynihii ka shaqeynayay Soomaali Galbeed NFD xitaa waa laga joogaa Soomaali cid ku maqan ma leh goobta madaxweyne waxaan ku leenahay ku soo dhawow waxaan rajaynaynaa inaad warbixin badan naga siiso wasaaradda aad joogto iyo guud ahaan Galmudug iyo dalkiiba inaad warbixin naga siin doonto ayaan rajayn doonaa kadibna wixii su'aalo ay kugu soo laabtane inaad nooga jawaabi doonto waxaan ka gudbay in safaaradda military Atajiya General Mukhtaar inuu noola joogo shirka ugu dambeynna madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Galmudug ahna agaasimaha batroolka iyo macdanta Soomaaliya mudane Maxamed Xaashi Cabdi Carabey ayaa ka hadlay dhowr qodob oo kala duwan idinka mahadcelinaa waxaan boqolkiiba boqol u mahadcelinaa gudoomiye Maxamed Cumar oo runtii barnaamijkaas loo agaasimay waxaan kaloo mahadcelinaa odayaasha sharafta leh oo ka soo wada qayb galay oo meelo badan oo kala duwan ka yimid dhalinyarada gabdhaha iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee reer Johannesburg iyo Pretoria dhammaantiin maaragtay waa idin mahadcelinaa South Africa guud ahaan oo Soomaaliya jooga u dhiman jira Allah u naxariistay runtii waa dhintay marka meelahaas oo kale aan ka raadinay aad u mahadsantihiin intaas waa iska taariikh kooban waxaan rabaa inaan dhowr wax idin kala hadlo mid waa Galmudug mid waa dawladda dhexe iyo siyaasadeeda iyo wax marayso oo dad badan ka hadleen oo guudna wada qosayso mid waa idinka ruuxiina midna waa maartay wasaaradda aan ka shaqeeyo iyo shaqada meesha u imaaday iyo waxaan qabanay intaas waxaan rabaa inaan wax ka dhaxdhaho walowna waqtiga uu dheer yahay oo waqti dambe ay iska raalahaad horta Galmudug saa la socotaanba runtii waa maamul inta hadda uu jiro iyo waxqabadkiis isma laha Galmudug waa maamul oo Urduna 2015 la dhisay haddana wuxuu jiraa muddo oo maaragtay muxuu ahaa ku dhow 9 sano iyo xoogaa wuxuuna gaaray guul aad u fiican oo runtii aan marnaba la taaban karin walow ay jiraan caqabado oo dhinaca shabaabka joogaan wali dhinaca qabaa'iladii laga yaabo inay wali isla leynayaan oo dadkii maaragtay dhibkooda iska jiro dhinaca duruufo oo dhaqaale iska jiraan laakiin haddana saa arkaysaan oo hadda la sheegayo Galmudug waxay horumar ku gaartay waxa ka mid ah iswada ogolka waa maamul maaragtay aan iska daba qaylinin oo wax ka daba qaylinay jirin iyo soona la mid ah ay maaragtay wali ku jiraan aagaas dhexe ayadana waxaan rajaynaynaa mar dhow in laga saari doono dawladdu waa u diyaarsan tahay boqolkiiba boqol in maaragtay laga saaro nimankaas meesha dagaalkaasna la galo laakiin mar walba siyaasadda dhinac ka imaanaysay oo la socotaan haddeer waxa ka taagan saylac iyo dhinaceeda maaragtay arrimahaas keenay muxuu ahaa in maaragtay xoogaa dib u dhacaas oo wejiga labaad oo dib u dhaco yimaado siyaasadda xoogaa dhinacaas ka imaaday xaale aan isleeyahay wax waa looga qaban karaa dalka way fiicnaan lahayd inay investors aan noqotaan oo dalka ku maalgelisaan fikradaha halkaan aad ka qaadaan aad ku celisaan xagga oo ama beeraha ka shaqaysaan ama aad ka shaqaysaan Cabdirashiid Xuseen Karaash raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle Hotel Noura Johannesburg Koonfur Afrika